magacayga waa Bashiir Cabdullaahi Nuur waxaan joogaa ku noolahay hadda Gaarisa waxaan ku jiraa faraq qaxooti faraq qaxooti ku jiray muddo 30 sano ku dhowba waxay 1993 waxaan ahay waxa i geysay qaxooti duruuf nololeed waxaan ahay Kenyaan hooyaday waxay haystaa kaanu warqad ahayd oo hata 19 I think waxa u maleynaa 19 waxa waaye 63 markaan waxaan dalbanay in waan dan qabsanaanahay waan safar ma aadi karno waxaan macna aan xuquuq aan ku leenahay wadanka ma jirto ayagoo og haddana dawladda iska siiyeylaysaa oo ku sugaad goosani faraq qaxooti ay ku sheegaan waa ku soo xiraayeenba ayagoo duruufta u sheegtay waxa danta u gashay og markaan waxaan ka cabanaynaa fadlan in faraq qaxootiga nagala saara si aan dabcan aan u noqono dad dhaqdhaqaaqi kara xuquuqdooda dib u helay waayo manihin dad sheegada waxaan nahay Kenyaan sax ah si aan ku sheego hooyaday waxa haystaa aan ku dhahay macna diiq gadna kaanu warqad gadna haystaa waa dareemi kartaa aabi intuu ku dhashay inta ku wada dhalnay laakiin qaxooti waxa ana geysay duruuf macna nolosha iska cariir ilaa hadda sidaas ma naadido county aan biil aan ku noolnaa maxaa malaysay markaa iyada markaan waxaan leeyahay oo aan dalbanayaa faraq qaxootiga ee nagala saara ayaan ka codsanaynaa county-ga macna dawladda dhexe saasaan dalbanayaa السلام عليكم magacaygu waxa la dhahaa Xaliim Maxamuud Cabdi waxaan galay faraq qaxooti markaas ilmaanan dhalay faraq qaxootiga waan galay Kibanda qabo ilmaan dhalay ilmeygu way akhristeen laakiin wali hadda Kibanda uma baahanin kala wali iskuul ku jiraan ilaa waxa arkay dadka kale aanay la midka dhibka haysto oo ilminta ay bogan secondary iska joogan meel aadi karin sharci la'aan darteed taas marka murugu ku qabatay ama yaadina ilmaha sidan oo kale bay noqonayaan bari ka maalin ilmi iskuul ay u jiraan kulli waan wada sugayna Kenyaan nahay mar baaba iska samarna oo aan dhaana bas waa idin Kenya waxay ugu malihidin laakiin hadda alxamdulillah aad baan faraxsanahay safarka wax badan baa yaa مساجي من باسوجو عطا ولي أنت أنت ما هذه ماشيس إنه أساجي مع ذموجي صابت شرعي أكو مرت جد كم يستي مركب دباتين بدنا نكلا كلنا لكن هذا هذا وفرح سنة ما دام يدورنا مصح حسوستي الحمد لله هذا وفرح سنة. هايكو Garissa County, Wajir County, Mandera County, hata Tana River County ni furaha kubwa isiyo na kifani, kwa sababu kwa muda mrefu watu kutoka sehemu hii wameathirika kwa sababu ya kuingia katika refugee database, na kwa sababu hiyo Wakenya wengi wameshindwa kupata vitambulisho, wameshindwa kupata kazi, wameshindwa kusafiri na watu wameumia. Waziri, mimi nataka kusema jambo tatu. Nani ameingia katika refugee database na ni kwa sababu gani na sahihi wako wapi? Wale watu wameingia kwa refugee database wameingia kwa sababu ya kutafuta chakula na services zingine. Na wale watu wameingia kwa refugee database si ati wako tu katika refugee camp. Wengi wao wako hapa Garissa, ukienda sehemu zote Garissa County, hata Wajir, hata Mandera, hata Tana River, hata Nairobi, wako watu wengi wako wameingia kwa refugee database. Na wale wako kwa refugee database wako na wale walikuwa na vitambulisho na wameingia kwa database. Kuna wale wameingia kwa database walipata vitambulisho wakiwa kwa database. Na kuna wale wameingia kwa database na walishinda kupata kitambulisho. Pia kuna wale watoto wako kwa database hawajafika umri ya kupata kitambulisho. Kwa hivyo kwa leo, kwanza tunashukuru serikali imeamua kuangalia hili jambo. Lakini nataka kusema waziri, kwa hakika ile muda mmepeana ni mwezi moja na sisi hatuna lalamishi. Lakini mimi naomba hivi, ikiwa hiyo muda itaisha na bado kuna watu hawajapata fursa ya kuja, tunataka watu wasiwachwe wakiwa kwa mstari ya hii kazi. Hiyo ndio ile jambo ya kwanza nataka kuuliza. Ya pili, watu wa sehemu hii wanataka kushukuru sana serikali kuu ikiongozwa na Honorable His Excellency Uhuru Kenyatta na mwenzake Deputy President William Ruto na party ya Jubilee na affiliates, kwa sababu hili jambo imesemekana kwa mahali mingi. Nafikiri leo ile mambo imefanyika hapa imeleta furaha kubwa kwa kila mtu katika hii sehemu hii.
way hal ila laga bixiyo ila komitida duqeyda siifafka dadkeena anaga xoolo dhaqataan ana waa isgaranaynaa dadka meesha ku jira kulli waa la wada garani qaraabakiil ha samaynina dadaan ha qulayna soo gelinina nafaaska ha gadanina dad kale ha dhaafirina meeshaan ka faa'iidaysano dadka dhib badan bay soo mareen aan ka faa'iidaysano dowladda waxaan kaloo weydiinayaa in xuduudka ay furto waxaan laga ballan qaaday ahayd. Registration will take place inshallah this year, and this is where we are now. Thank you so much, Mr. Kas. Thank you so much, and you have the full support of UNHCR. UNHCR will accompany the process. And maanta dowladda heegan waxay u tahay inay garab u ahaato ummadeeda meel kasta ay ka joogto waddankan. annagu waanu ku faraxsannahay in dadkeenni faraha qaxootiga laga bixiyo, garab loo noqdo, loo gargaaro ummaddii ay bulshadii ay ka faa'iidaysato taa iyada. marka waxaan idin leeyahay isa soo xaadiriya musuq maasuq iyo munaafiqnimo iyo waxalayn aanan ogolaanin fursaddan hadda aan helnay. The purpose is to have Guinean Kenyans issued with Kenya identification documents, including ID cards, passports, and Huduma number, and enable them to regain their citizenship. On the other hand, those refugees who irregularly took Kenyans' ID documents have been given a window to return them and regain their refugee status. Many Kenyans registered as refugees with the hope of getting resettlement abroad, a free food ratio, healthcare, among others. There are also refugees who irregularly took Kenyans' registration document with the hope of getting services that citizens of Kenya enjoy. The security threats posed by the latter category cannot be underestimated. Hence, the need to carry out this exercise and put the two categories of people to where they rightfully belong. Na hakuna siku ambayo mtoto ya ile kijiji haiwezi julikana na wazee wa hii kijiji. Iko kweli? ndio tunaomba wale wazee ambao watachaguliwa, machief na ACC na DCC, lazima muhakikishe ya kwamba wale ambao tuna vet ni wale ambao ni wa Kenya. Hatutaki mtu mwingine ambaye ametoka pahali nyingine apate identity card ya Kenya. Hiyo ni fursa. Na ule mtu atajaribu kufanya ukora ingine hapa, basi RC yuko hapa na watu yake, tutakukamata na tutakupeleka kwa kotini. Pia tuko na wale ambao wamerejista kama wa Kenya. Umepata nafasi sasa, urudi uende kama refugee, tukurudishie wewe ile status ya refugee, ukae, kwa sababu hapo ndio inatakikana uwe.